Caruurey, kani waa Axmed. Wuxuu jecel yahay inuu cuno jukulaatada. Axmed mar walba wuxuu cunaa jukulaato fara badan. Axmed yara caruurey. Maalin maalmaha ka mida waxa uu yimi saaxiibkii Cali. Cali wuxuu u sheegayaa Axmed jukulaatadu inaanay u wanaagsanayn ilkaha. Cali wuxuu ku yidhi caruurey Axmed yare, Axmedow saaxiib, ilkahaaga u nax. Jukulaatadu ilkaha ayay kaa jajabinaysaa. Laakiin caruurey, Axmed yare ma rabo inuu maqlo hadalka saaxiibkii. Waxaanuu ugu jawaabay, dhib ma laha, jukulaatada mar walba waan cunaa. Aadna waan u jecelahay cunista jukulaatada. Caruurey, waqtigii hurdada ayaa la gaadhay. Axmed yare wuu seexday. Isagoo hurdo aad u macaan ku jira ayuu riyooday. Caruurey, Axmed yare wuxuu ku riyooday isagoo meel cidlo ah jooga. Wuu baqay. Waxna way u dhawaaqayeen. Isagoo le yaa ila hadlaya, yaa ila hadlaya. Waxa la hadlaayay wuxuu ahaa caruurey goos. Caruurey, goosku waa ka ilkaha ka shisheeya ee markaynu cuntada calaalinayno aynu ku calaalino. Gooskii ayaa u yimi oo ku yidhi, waxaan ahay gooskaagii. Waa la iga kaa soo saaray. Hadda meel cidlo ah ayaan joogaa. Waayo adiga ayaa dayn waayay cunista jukulaatooyinka. Dhakhtaradii ilkuhu way iga kaa soo bixisay. Caruurey, gooskii Axmed laga soo bixiyey wuu murugaysan yahay hadda. Waayo waxa laga soo saaray ilkihii kale iyo goosaskii kale ee uu weheshanayay. Waa kan Axmed si riyo ah afkiisa ayuu ku dhex jiraa. Gooskiina wuu la socdaa. Waxaanuu u sheegayaa xaaladda ay ilkihiisu ku sugan yihiin. Jukulaatada badan oo la cunaa inay dhibaatadan leedahay. Waayo Axmed jukulaato badan ayuu cunayay. Manuu nadiifinaynin ilkihiisa marka uu cuno jukulaatada. Taasina waxay ku sababtay Axmed yare in ilkihiisa bakteeriyo badan yeeshaan oo ay ilkihii ka jajabiyaan. Caruurey, Axmed yare si riyo ah ayuu rabaa hadda inuu ku soo ogaado ilkaha saaxiibkii Cali oo mar walba u sheegayay jukulaatadu inay dhibaato leedahay. Ilkihiisana uu nadiifiyo oo uu ka cadaydo jukulaatooyinka. Hadda wuxuu arkayaa Axmed yare ilkihii Cali. Cali ilkihiisa wuu nadiifiyaa. Ilkihiisii way cadcad yihiin. Bakteeriyana kuma jirto. Waayo mar walba wuu cadaydaa. Caruurey, waa kan Axmed. Hurdadii ayuu ka soo toosay. Riyadii uu soo arkayna wuu xasuusan yahay. Wuxuu ogaaday inuu qalad ka galay ilkihiisa. Wuxuu bilaabay inuu cadaydo. Cadaygii burushka iyo dawadii cadayga intuu isku shubtay ayuu ilkihiisii cadayayaa. Wuxuu rabaa ilkihiisa inuu ka nadiifiyo bakteeriyada. Axmed yare caruurey wuxuu bilaabay cunista qudaarta. Qudaartu faa'iido ayay u leeyihiin ilkaha iyo caafimaadkeena. Marka aynu cunno caruurey jukulaato fara badan oo aynan ka cadayanaynin, ilkaheennana way jajabinaysaa, caafimaadkeennana uma fiicna. Cali kolkuu arkay Axmed oo qudaar cunaya wuu farxay. Wuxuu ku yidhi, oo jukulaatadii waad iska daysay, qudaar ayaad cunaysaa maanta. Caruurey, Axmed saaxiibkii Cali wuxuu yidhi, jukulaatadu inay dhibaato leedahay saaxiib waan ogaaday. Inshaa Allah, hadda laga bilaabana qudaar ayaan cunayaa. Caruurey, Axmed wuu inala hadlayaa. Wuxuu ina leeyahay, caruurey, iska daaya jukulaatada badan. Haddii aad in yar ka cuntaan, ka soo cadayda jukulaatada. Haddii kalena bakteeriyada ayaa idinka jajabinaysa ilkaha. Kadibna way idin xanuunayaan. Dhakhtarka ilkaha markaad u tagtaanna ilkihii oo jajabay wuu idinka soo bixinayaa. Caruurey, waa kuwan Axmed iyo Cali iyagoo faraxsan. Wanaag badan iyo farxad badanna
inoo rajaynaya. Taladay ina siiyeenna waxay ahayd ilkihiina caruurey inay jajabaan sabab ha u noqonina ee ilaashada.